dagaal culus oo shalay khamiis ahayd bilowday ayaa ka socda deegaano ku teedsan xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii al-shabaab weerar 3 jiho ah ku qaadeen laba deegaan oo ku yaala xuduudda Itoobiya. al-shabaab ayaa gudaha u gashay deegaanka Soomaalida in ka badan 70 kiiloomitir kadib dagaalo tan iyo shalay ka socday xuduudda DDS iyo maamulka Koonfur Galbeed oo u dhaxeeyay liyu booliska DDS iyo al-shabaab. wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan militariga Itoobiya ay dagaalka ku biireen ayna go'doomiyeen xoogagga al-shabaab ee ka tallaabay xadka ilaa iyo 16 gaadiidka dagaalka ah oo ay wataan. al-shabaab ayaa gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaalida waxa loo badinayaa inay hadda ku sugan yihiin miyiga degmada Hargeysa. dagaalka xoogagga al-shabaab ay ku qaadeen deegaanada gobolka Boqol ee xuduudda Itoobiya ku yaala ayaa la soo warinayaa inuu tii hore ka baaxad weyn yahay. tirada ciidanka al-shabaab galiyeen dagaalkaasi oo khasaaraha dhacayna wuxuu u muuqdaa inay shabaab ay muddo dheer ka shaqeynayeen weerarkan. mas'uuliyiinta dowlad deegaanka ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin wixii dhacay. maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya war lagama hayo. al-shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka waxayna xuseen inay dileen ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan ciidanka liyu boolis ayna qabsadeen fariisimihii ciidankaasi ku lahaayeen deegaano uu ka mid yahay Yeed iyo kuwa la daris ah. hase ahaatee ma jiraan warar madax banaan oo xaqiijinaya ama beeninaya warkaas. dagaalada dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay dad boqolaal gaaraya oo labada dhinac u badan waxaana aad u adag in warar laga helo deegaanada isgaarsiinta oo go'an awgeed.